ismaqal iyo daawasho wanaagsan waa markaan qodobadii ugu xiisaha badnaa Soomaaliya caalamka qodobada aad ku daawo doontaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Khayre oo kulamo xasaasi ah ka wada dhuusamareeb mashruuc ay ansixisay dowladda federaalka Soomaaliya oo laga bilaabo deegaanada Somaliland Kenya oo gudbisay dacwad ka dhan ah madaxweynaha ICJ Cabdiqaawi Axmed Yuusuf filla Soomaaliya oo ballanqaad u sameysay Cumar Filish oo amray in la joojiyo lacagaha la siiyo xildhibaano iyo saraakiil Axmed Madoobe oo arka shaqool socda oo lagu qabsanayo Jubbaland qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawo doontaan hadduu eebid markaana u diyaar garooba ayagoo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Dr. Nuur Diiriye Xirsi Fursade ayaa xafiiska ku qaabilay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamed Cumar Filish kulanka oo ahaa mid gaar ah ayaa waxaa diiradda lagu saaray howlaha horumareed ee gobolka Banaadir ka socda iyo kuwa horyaala iyadoo xoogga la saaray dardargelinta amniga arrimaha bulshada iyo dib u dhiska goobaha danta guud agaasimo Fursade ayaa u ballan qaaday gudoomiye Filish in filla Soomaaliya ay gacan muuqata ka geysanayso dhammaan dadaalada lagu horumarinayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada gobolka Banaadir waxaa ku yaalo caasimadii ummadda Soomaaliyeed waana muhiim in dhammaanteen aan iska kaashano soo celinta haybadii ay Muqdisho ku lahayd caasimadaha dunida ayuu yiri agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntii iyo talooyinkii agaasinka madaxtooyada Soomaaliya ugu dambeyn wuxuu carabka ku adkeeyay in maamul iyo shacab ay xoogga saaraan sidii loo heli lahaa caasimad qurxoon oo amni ah dowladda Kenya ayaa war cusub ka soo saartay kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya kaas oo ay haatan dacwadiisa hortaalo maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ Kenya ayaa dalbatay in dhageysiga kiiska badda labada dal laga saaro garsoore Cabdiqaawi Maxamed Yuusuf oo ah madaxweynaha ICJ sidoo kalena Soomaali David Matsanga oo ah gudoomiyaha hay'ad la magacday BAF isla markaana sheegata inay u doodo arrimaha geeska iyo bariga Afrika ayaa tilmaamay in Kenya ay doonayso in ay dhageysiga kiiska badda laga reebo garsoore hay-adani oo hogaamiyaan koox Kenyaan ayaa sheegatay in madaxweynaha maxkamadda ICJ uu si dhexdhexaad ah u geli karin kiiskani isla markaana niyadiisa ay jirto Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu hay-adda ku eedeysay Cabdiqaawi in marar badani uu fagaaro ka sheegay in uu jecel yahay guusha Soomaaliya ugu dambeyn David Matsanga ayaa ugu baaqay in dowladda Kenya in aysan ka qaybgelin dhageysiga kiiskani isla markaana ay banaanka ka soo istaagto dagaalka ilaa iyo 13 bishan September ayaa lagu wadaa in ICJ ay dib u bilowdo dhageysiga dacwadda badda waxaana dooda ku horeynayso Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka walaacsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ay wado qorshe ballaaran oo ay ku qabsanayso Jubbaland xilli ay sare u kacday xiisadda labada dhinac agaasimihii hore ee mashruuca geeska Afrika ee hay'adda casradda caalamiga ee ICJ ayaa qoraal u soo jeediyay bartiisa Twitter-ka ku soo dhigay in Axmed Madoobe uu aad uga careysan yahay xariga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wasiirkiisa amniga Cabdirashiid Janan Rahsiid Cabdi oo sida uu sheegay Janan ay shirqooleen ciidamada Itoobiya isla markaana u gacan galiyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu Axmed Madoobe u arkaa in ay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo Itoobiyaanka ay ku soo weerarayaan kuna qabsanayaan Jubbaland waxaan u sheegay in Axmed Madoobe uu dhawaan u bixi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya isaga oo dowladda dalkaasi ka codsan doono in ay gacan siiso booliska Soomaaliya ayaa 31 Agosto garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku xiray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan isaga oo ka yimid deegaanka Dolow ee gobolka Gadow una socday magaalada Addis Ababa Abdullaahi Abuukar Cismaan wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in deegaanadeeda laga wado mashruuc ay soo saxiixday dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo ay weheliyaan dowladaha Djibouti iyo Itoobiya ay wada saxiixeen mashruuc uu banka horumarinta Afrika ku fulinayo Somaliland kaasi oo ah wadada isku xidha magaalooyinka Boorame iyo Laascaanood wasiir Abdullaahi Abuukar oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri mashruuca waxa maalgelinaya banka horumarinta Afrika mashruuca hal abuurkiisa waxa lahayd dowladda Somaliland
waxaana markii uu madaxweynaha Jabuuti tagay uu ka codsaday madaxweynaha Jabuuti in wadada Boorame iyo Laascaanood wax laga qabto. Madaxweynaha Jabuuti wuxuu ka howlgalay wuxuuna Banka Horumarinta Afrika ka codsaday in wadada loo dhiso. Waxaa ka wada codsaday oo mashruuca ka wada qayb galay dowladda Jabuuti, Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo markii dambe qayb ka noqday, maadaama oo aanan Somaliland ka mid ahayn wasiirada maaliyadda Afrika ee saxiixa mashaariicda. Wuxuuna intaasi ku sii daray, innaga Soomaaliya waxay inoola mid tahay Itoobiya ama Jabuuti oo kale. Mashruucana waxaa wada saxiixay saddexda dal, maadaama oo aynan inagu ka mid ahayn Banka Horumarinta Afrika. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo xalay ku hoyday Dhuusamareeb ayaa kulamo xasaasi ah ka wada gudaha magaaladaasi. Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa la kulmay madaxda Ahlus Sunna wal Jameeca, gaar ahaan Macalin Maxamuud iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, iyaga oo ka wada hadlay arrimaha shirka dib u heshiisiinta iyo doorashada guud ee maamulka Galmudug. Sidoo kale waxaa saacadaha soo socda uu ra'iisul wasaaraha kulamo la yeelan doonaa ergeyada ka qayb galaya shirweynaha dib u heshiisiinta ee beri ka furmaya halkaasi. Ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, iyadoo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee la geeyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay kulamadaasi. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamed Cumar Filish ayaa shalay amray in la joojiyo dhammaan lacagaha la siiyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, taas oo laga bixiyo qoondada gobolka Banaadir. Sida ay noo sheegeen ila wareedyo ku dhadhow Cumar Filish, warqad uu shalay soo saaray ayuu ku amray in aysan jirin qof la siin karo lacag kuwaasi oo aanan ka tirsaneyn shaqaalaha gobolka Banaadir, wixii laga baxsan waayana ay ku baxaan saxiixii wadatashi. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Muqdisho ayaa amray in ballan la'aani aysan jirin qof xafiiskiisa imaan kara, waxaana shaqaalaha lagu wargeliyey in xildhibaanada, wasiirada iyo saraakiisha kale u socda xafiiskiisa ay ku yimaadaan ballan iyo ka warqab dowladda. Dadka aan heli doonin lacagaha gobolka oo markii hore joogtada u qaadan jiray waxaa ka mid ah xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xarumo kale. Sidoo kale waxaa lacagta weyn doona mas'uuliyiin aan dowladda xil ka haynin oo ahaa taageerayaal nabad iyo nolol ah, kuwaasi oo deganaa hoteelada magaalada Muqdisho lacag qaadan jiray keliya in aysan dowladda mucaaradin ama taageeraan. Qaar ka mid ah dadkani ayaa dalka ka soo qabtay xilal sare.